السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج امتحانات تكنولوجيا سو دواو waxaa rabaa inaan halkan kugu tuso sida u bedelan lahayd passwordka computer-kaaga. password computer-kaaga inaad bedesho hadaa rabto waxaa loo bedelan karaa laba qaab. labada qaabne waa laba qaab kala fudud. midda koowaad waxaad tagaysaa qaybta window bar-ka, kadib waxaad sii tagaysaa qaybta setting-iga. markuu setting-ga markuu kusoo furmo waxaa kasii tagaysaa qaybta accounts ku qoran tahay. accounts marka qaybta ku qoran tahay markaa tagto waxaa kusoo baxayo magaca ku qoran computer-kaaga. account-ka kaga jirto waa local account iyo administrator. laga yaabo inuu computer-kaaga ka duwan yahay saas uusan kusoo saarin si kaleeto. marka password-kaaga inaad bedesho hadaa rabto waxaa kasii tagaysaa qaabta sign in option meesha ku qoran tahay. waxaa jira qaabo badan oo computer-kaaga password ahaan ugu xiro karto. qaab koowaad waa Windows Hello Face lahaa weji inaad ku xirato, iyo qaabka labaad waa Windows Hello Fingerprint, waa scan iyo fingerprint tool iyo waxaas uu leeyahay. iyo qaab kale oo Windows Hello Pin lahaa pin iyo waxaas ku xiri kartaa. iyo qaab kale waxaa jiro security key la dhahayo asagoo u baahan boot iyo waxyaalahaas. qaabka anaga hadda isticmaal rabnan waxaa lahaa password, waa qaab password ahaan inaad u gasho. iyo qaab kale waxaa jiro picture password lahaa muuqaal ama sawir inaad ku aadiso then uga dhigata password. anaga waxaa isticmaali doonaa hadda oo cashirkeena quseeya qaybta password. qaybta password markaa ku dhufato waxaa leedahay change markaa dhahdo wuxuu ku weydiinaa passwordka hore kugu xirnaay. passwordka hore kugu xirnaay markuu ku weydiiyo passwordkii aad gelinaysaa. anaga waxaa noogu xirnaay password iska daciif ah atom 87. then waxaa leedahay next markaa dhahdo wuxuu ku leeyahay password cusub geli. password cusub aad gashanaysaa. password cusub markaa gashato haddana waad ku celinaysaa. markaa ku celiso horta ma jiro waxyaalo oo intii control a intaa copy soo dhahd inta paste kusoo dhaa waxaas ma jirto. copy saas hadaa usoo dhahdid control c aad dhahdid inta ay maatid control v aad dhahdid waxaas ma jirto. anaga hadda waxaa ka dhiganay passwordkeena atom graphics. intana sida hadaaya kor u gelisa intana u gelinaysaa adoo waxba ku kala bedelin. oo jeedaa waxaa kusoo haray password hint. password hint waxaa laga wadaa waxyaalo kusoo xasuusin kara xaraf number waxyaalahaas tusaale ahaan kusoo xasuusin karo passwordkaaga. marka waxaa rabtid waa gashan kartaa. dad waxay gashtaan way markii password san camal ay u gashtaan si passwordkooda way computerka loogu celcelin camal. inta tusaale ahaan waxay gelinayaan passwordka geliso waa khalad waxaas waa saas wariyaha passwordka furin tusaale ahaan waxyaalahaas camal. laakiin password hint ahaan waxaa loogu talagalay waxyaalo kusoo xasuusin karo passwordkaaga. hadda anaga passwordkeena waxaa ku jiro atom graphics. marka inta camal waxaa tusaale ahaan gelinaynaa labada xaraf laga soo gaabiyey atom graphics space-ka waa ka dhaafo. okay waxaa leedahay next markaa dhahdo wuxuu ku tusaa account-ku kaaga kacsan yahay waa local account. then waxaa sii leedahay finish. qaabkaas waa qaabka koowaad aad u bedelan karto passwordka computer-kaaga. marka waxaa jiro qaab oo labaad aad u bedelan karto passwordka computer-kaaga. qaabkaas waxaa lahaa qaybta may this pc. dad waxa uu qoran yahay may computer-ka ku way jiraan. marka waxaan oo hadda desktop-ka yaalaan iconadan haddii desktop-ka ku oolin cashar kale kasoo sameyn doonaa qaabka desktop-ka loo soo dhigto. marka this pc right click leedahay manage leedahay. manage markaa dhahdo waxaa kusoo baxayo may computer management. marka waxaa kasii tagaysaa qaybta local user and groups. then waxaa kasii tagaysaa qaybta users ku qoran tahay. qaybta users ku qoran tahay markaa sii tagto waxaa kusoo wada baxayo inta ka kooban oo magaciisi computer-kaaga account ka kacsan. anaga kan hadda isticmaalno waa Abdullah Atom kan ku qoran yahay. passwordkeena ka bedesha daarto waxaa leedahay right click markaa dhahdo set password aa leedahay. kan kii hore wuxuu uga duwan yahay kan kuma weydiinayo passwordkaaga hore geli. kii hore wuxuu ku weydiinayo current password geli passwordka hore kugu xirnaay. kan waxaas kugu xujeenayo kan sheekadiisa waxa waaye passwordkaaga daa bedel weyso waa laga bedelanaa.
marka qaybta borsida ku dhufane borsid marka kusii dhufato password cusub gasho ku leeyahay password cusub marka anaga waxaa gashanaynaa passwordki kow hore oo noogu xirnaay atom 87 passwordka hore password cusub aan gelinay iyo passwordka hadana waa confirm ku sameynay intaas waay kan marka kii hore wuxuu uga bedelan yahay ku sheegay kuma weydiinayo passwordka hore kugu xirnaay anaga hadda password cusub aan sameysanay atom 87 confirm aan gelinay atom 87 ku celinay okay la okay marka dhahdo wuxuu ku leeyahay the password has been set passwordkaaga waa la bedelay waa la saxay qaabkaasna way jirtaa oo passwordka labadaas qaab ayaa jirta oo passwordada loo bedesho aad baan idin salaamayaa waa tixanaha tiknoolajiyada fadlan hadaa ka heshay muuqaalkan like waa mahadsantihiin waa aniga iyo adiga iyo barnaamijkii tixanaha tiknoolajiyada